gudoomiyaha gobolka sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan mas'uuliyiin ka tirsan komishanka qaranka maamulka degmada Ceelafweyn iyo waliba mas'uuliyiin kale ayaa kormeeray qaabka u socoto qaadashada kaarka diiwaangelinta codbixiyaasha oo maanta si rasmi ah uga bilaabantay degmada Ceelafweyn ee gobolka sanaag. kormeerkaasi kadib waxa halkaasi ka hadlay mayor ku-xigeenka degmada Ceelafweyn Maxamed Jaamac Liibaan, saraakiil ka tirsan guddiga komishanka qaranka iyo mas'uuliyiin kale. maanta ay bishu tahay 27 ka baad degmada Ceelafweyn iyo guud ahaanba intii gobol sanaagba oo kan kamid tahay gaarada iyo Ceelafweynba waxaanu saaka ku waabariisnay gudoomiye iyo commissioner subax qayr qabta oo wanaagsan oo runtii intaan hadda aynu war helayna dhamaantoodba ay wada yihiin wada shaqeynayaan. runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa wafti ahaan oo badhasaabka hogaaminayo iyo commissionerada iyo taliqabeedku saaka ay joogaan goobta ay joogtaan waa goobtii BD eedina saaka waynu soo maray dhammaan si wacan bay uga socotaa. aan gudoomiye ku soo dhawow degmada Ceelafweyn goobta B goobtii eena waynu soo maray waxa si fiican oo habsamay u socda diiwaangelintii oo noo bilaabantay maanta oo bishu tahay 27 December dhammaan degmooyinka garadag iyo Ceelafweyn iyo goobaha ay ka kooban tahay oo dhan 350 goobood oo isugu jira buur iyo xeeb iyo banaanba si habsamay ay ugu socotaa ilaa iminkada wax ilaa lama soo sheegin. nabadgelyadu waa sugan tahay, hawshu si fiican bay u qabsoomaysaa. mahadda Ilaahay baale. waxaan kale u mahadnaqayaa shaqaalihii aan suuro geliyay aan sida habsamida u socoto. waxaan kale u mahadnaqayaa ciidamada qaranka oo ugu horeeyo aan taliyaha qaybta barbarkayga taagan oo ilaa maalintii ay bilaabantay hawshaasi noo helana. alxamdulillaah rabbil caalamiin si fiican bay u socotaa. annagu waanu kormeeraynay shaqaduna si wanaagsan ayay runtii uga hirgashay oo u bilaabantay. halkaas shalayna waanu la hadlay shacabka. waxaanu leenahay degmada Ceelafweyn iyo degmada Garadagba isdiiwaan geliya waa qaybta sanaag ee maanta ay ka socoto in la qaato kaarkani danteena ku jirta waa ta lagu xaqiijinayo shacbiga Ceelafweyn inta ay leeyihiin si horumarkooda iyo mustaqbalkooda iyo xildhibaankooda iyo mudanahooda intaba ay ugu soo saari karaan. insha Allah ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dadku inuu kaarka qaato hawshana si nabadgelyo oo xasiloon oo wanaagsan bay u socotaa. qayb kastaba labada goobood ee sanaaduuqdu yaaliin insha Allah way hagaagi doontaa ilaahay idamkiisa. laakiin muwaadinka waxaan u leenahay muwaadin kaarka qaado soo bax iyo kii uu ka lumooba kaarka soo doono isa soo diiwaan geliyo. maanta bisha 27 waxa degmada Ceelafweyn iyo tuulooyinka hoos yimaado ka bilaabmay diiwaangelinta codbixiyaasha guud ahaan si nabadgelyo ay uga socotaa meel kasta. waxaanu xoojinaynaa ku baaqaynaa in dadku ay ka faa'iideystaan jaaniska oo isdiiwaangeliyaan. degmadu waa degmo ballaaran meel dhul badan xukunta meel kasta ay joogaan in dadku ay u diyaar garoobaan isdiiwaangeliyaan. gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay badhasaabka gobolka sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan oo bulshada deegaanada degmada Ceelafweyn ku booriyay inay qaataan kaarka diiwaangelinta. runtii maanta waxaan taaganahay waa Ceelafweyn goobtuna waa goobtii labaad goob doorashada maxaan ku goobta B horena waxaan u soo marnay saaka qaybtii A oo aynu kulankii ku soo qabanay hore aynu isku weydiinaynay bal sidii maxaan ku dhahdaa gobolka oo dhan santuuqyadu gaadheen. waxaan banaanka ka jeedinaynaa imika aan leenahay hal ilaaliyo nabadgelyada hana laga faa'iideystaa 4 maalmood ay diiwaangelintu socoto. ha ka faa'iideystaan dadkii aan hore isu diiwaangelin. waxa laga yaabaa qofka haddii hore isu diiwaangeliyo haddana maanta yiraahdo mar labaad ku celi inay wax ka qaldamaan baa laga yaabaa. dadka u baahan waxa weey dadka aan hore isu diiwaangelin ee jaanis way isku diiwaangeliyaan isla markaana muddadii ka dambeysana maxaan ku raadayay muddada intii u dhaxaysana qaan gaadhay iyo maxaan ku dhahay qaybaha kale kulli way dambeeyaan si hore loo sheegay haday tahay maxaan ku dhahay kuwii dhameelka galay ka gubtay laftoodu waxa laga yaabaa in maanta iyaguna ku jiraan oo u saxmayaan oo maxaan ku dhahay iyaguna ay qaadan doonaan. waxaan baan leedahay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay maamulada kala duwan ee degmadan maxaan ku dhahay Ceelafweyn oo ilaa 33 sanduuq yaalaan. waxaan isleenahay idinkuna aad maamul ahaan dhigta lagu hayo nabadgelyada dadweynahana waxaan leenahay codkiina ka faa'iideysto kaarka qaata. محمد سوت التلفزيون كقرن كسمارلان Ceelafweyn.